تيك جورس دي وابا تاسلي قدلي صمت لسي إذا سقال بلاد مدميركي إذا نمدي لقوا يقيني سوماليدا ayaa luntay mise Soomaalida cusub ee dhalatay burburka kadib ayaa geysata falalka noocan oo kala ah faquuqa iyo naceebkana wada Anshuur Shiraar waa aabaha 8 caruur ah 2 wiil iyo 6 gabar kuna nool xero loogu talagalay dadka soo barakacay ee ku taala duleedka Muqdisho waxa uu ka soo haajiray Somaliland gaar ahaan magaalada Burco ee gobolka Togdheer oo uu badi noloshiisa ku soo qaatay kadib markii shaqadan uu bulshada u hayo ee ah tolista kabaha iyo wax soo saarka biraha loo faquuqay isla markaana qabiilku uu ka soo jeedo darteed si loo siiyay xaaskiisa oo caloosha ku siday inuu 9 bilood ah si loo dilo halkaasna ay ku geeriyootay muddo hadda laga joogo 8 sano kuna noqotay canshuur burku taalo aan marnaba ka go'in calooshiisa dhacdada waxay ka dhacday Burco waa la wada Burco dhan waa wada ogtahay inta deganay sunal siinaad idoo 9 bilood habeen ma ahana bil ay u dhineen xirka ugu dhineen sunal si arrinta lagu fuqooq waa sancadan bas sancadan kabahan waa sameynaya birtan waa tumaya waxa lagu fuqooqay waa sancadaas kaliya intaasi kuma koobna xadgudubyada faquuqa iyo dhibaatooyinka uu kala kulmay canshuur shaqadan tumista biraha iyo wax soo saarkeeda waxa kale oo jirta dhacdooyin kale oo ku kalifay isaga in uu ka soo haajiro magaalada Burco waxaana kamid ah in wiil uu adeer u yahay uu u doonay gabar kadibna gabadh ehelkeeda ay uga hanjabeen dil una diideen gabadha shaqadan uu hayo iyo qabiilku uu ka soo jeedo darteed wiil adeer aan u ahay oo walaalkay dhalay aan gabadh u doolay waxa liigu yiri gabar ma soo doonatay hadda wadkaada soo doonatay haddii markaas naagtana liiga dilay anigana markaan wiilka aan gabadha u doonanayo liilee wadkaada soo doonatay inaan saas ku fakka waa wiilka liiga dilo on adeer ku ahay anigana lii dilo ama ka cabsadayba sidii daraadeed baan ugu soo guuray halkaas oo halka uu imid in ku jooga hadda alxamdulillah rabbil caalamiin waa ku nabad galay wiilkayga gabaraan u helay oo ka guursaday inta laakiin dhulkaas waa dhulka saas leegu soo yeelay aniga canshuur xeradan uu hadda ku nool yahay ayuu ugu shaqaystaa xirfadiisan tumista biraha iyo tulista kabaha waxa uuna ka biilaa nolosha qoyskiisa iyo tan wiilkiisa oo hadda ka caawiya shaqadan waxa uuna dhammaan Soomaalida ugu baaqay joojinta faquuqan lagu hayo dadka ku shaqaysta xirfadan iyo qabiilkiisa aniga tumaal aan ahaado midgaan aan ahaado waxaan ahaanay aan ahaado laakiin intaas ummadaas ilaahay xaqiisa waa ka simanay fartaasaan kana dadka waxaan jeclahay in ay faquuqaas ay ka waantoobaan waxa jira dad badan oo soo saara agabyo muhiim u ah bulshada laakiin lagu yaso ama lagu faquuqo shaqadooda iyadoo loo adeegsanaya erayo lagu liidaya dadnimadooda halka ay mudnaayeen in lagu dhiirigeliyo wax soo saarkooda haddaba daawade adigu ma kula tahay in qof nasabnimadiisa uu ku weynayo bir uu tumo ama kaba uu tolo maxamed bulbul Universal TV Muqdisho